yahow adowa eryasa eryasama ku noolban isku السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku faraxsanahay maanta inaan la soconno wafdi ay hogaaminayso marwada ayaa ii sheegay wasiiradda haweenka Maryan iyo legend hiba nuura aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta gabdhaha qardho hooyooyinka qardhood aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maanta ku faraxsanahay gabdhaha qardhood waa aqaana raalli ahaada qorraxda waa idin ku soo daahnay intaan iyo in ka badan inaad tihiin waa is arki doonaa waa joognaa ilaa berito waa ogahay burhaantiina banaanka inaad keenaysaan waxaan maanta haysanaa maxaa la yiraahaa hiba nuura oo ah qof qarameed ah ma garatay oo runtii tiri aniga maaye waa is wada arkaynaa oo tiri anigoo qardho soo booqanin kama tagayo Puntland marka insha Allah marwada madaxweynahana iyada casuntay hiba nuura waana is wada arkaynaa hadduu ilaahay idmo waxaan u mahad celinayaa isku duwaha wasaaradda haweenka Zahra Jaqanaf iyo gabdhaha la shaqeynaya oo abaabulay runtii inay soo dhaweeyaan wasiirka haweenka wasiir Maryan Axmed aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan garbahan ku duula kow ayaa ka mid ahayd muddada aan joogo wasiirka qiimo badan intaan wasiir la kulmayay wuu yar yahay aad bay ugu qaali tahay marka dhammaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadka reer qardho ee qiimaha badan ee dadka nadiifta ee Soomaalida dhabta ah markii loo yimaado tabtaasa waa mahadsantihiin markii halkan igu dambaysay waxa igu marti qaaday boqorka degmada boqor burhaan laakiin nasiib darro maanta muu joogo laakiin marwadii madaxweynaha joogta ayadaanay marti qaaday halkiisii oo kale aad baan u mahadnaqayaa aad baan u faraxsanahay adeegga sahan waxa uu kuu fududeynayaa ogaanshaha fursadaha shaqo ee ka bannaan dalka adigoo kala socon kara lambarkaaga goliska haddaba macmiil maantaba iska diiwaangeli adeegga sahan garaac *183 afar gees kadib dooro lambar 1 oo ah fura adeegga hambalyo macmiil waad ku guulaysatay furashada adeegga sahan.